mararka qaar sharka ma laha weji cabsi leh, mana laha indho dhiig leh, mana laha muuqaal ka dhigaya khatar oo aad ka carari karto. mararka qaar sharku wuxuu xidhaa suud, wuxuu leeyahay hadal macaan, wuxuu leeyahay dhoolla caddayn iyo soo jiidasho kalsooni kugu abuuri karta. sheekadan waa mid ku saabsan nin dad badani u arkayeen mid soo jiidasho leh, ixtiraam leh, daacad ah, laakiin dhab ahaantii ahaa mid ka mid ah dilayaasha ugu arxanka daran dalka Mareykanka ee soo mara taariikhda. magaciisu waa Ted Bundy. haddaba Ted Bundy caruurnimadiisii iyo halkii uu ku dhashay haddii aynu soo qaadano, waxa uu ku dhashay magaalo la yidhaahdo Vermont, waxaanu dhashay 1946. aabihiisa dhabta ah lama garanayo si rasmi ah. marka hore waxaa koriyey awowgiis iyo ayeediis. warbixinada qaar ayaa sheegaya in awowgii ahaa nin aad iyo aad u rabshad badan, isla markaasna ahaa mid khamriga caba, khamaarkana aad u ciyaara. caruurnimadiisa dib ayuu uga sheekeeyey isagoo ku tilmaamay mid farxad leh, balse cadaymo kale ayaa muujinaya dabeecado dhib badan. sida lagu yaqaan criminal behaviorku waxa uu lahaa dabeecada ka dhigaya inuu mustaqbalka noqon doono qof khatar badan, waxaana calaamadaha ka mid ahaa. haddaba ninkani waxa uu ahaa nin xayawaanka ay aragtidu ka dhaxayso, isla markaasna kuna raaxaysta inta uu dilayo. sidoo kale waxaa lagu hayay ama uu lahaa diiwaan dambiye yaryar oo aad u tiro badan oo u yaalay criminal recordka ciidanka booliiska. bilowga dilalkiisu waxa ay ku soo beegmeen waqtiyadii 1974. qofkii ugu horreeyey ee uu weeraray waxaa la odhan jiray Karen Sparks, 18 jir bay ahayd. Karen waxa uu si xun uga garaacay madaxa, isla markaasna waxa uu u geystay dhaawac maskaxeed oo aan in badan ka hadhin. intaa kadib wuxuu afduubtay Lynn Anna oo uu dilay. intaa kadib waxa uu dilkiisii noqday mid taxanaa, isla markaasna maalinba maalinta ka dambaysa la soo warinayo. waxaana isla waqtiyadaas la waayay ilaa iyo 6 dumar ah. kuna darso oo daawada ninkani waxa uu gaar u beegsan jiray haweenka oo kaliya. inta badan dhibanayaashiisu waxay ahaayeen ardayda jaamacadda la dhigata, hablaha aadka u quruxda badan, habeenkii goor dambe socda, isla markaasna keligood socda. markuu weynaaday wuxuu noqday arday sharciga ku takhasusay. haddaba muuqaalka ninkan oo ahaa mid aad u soo jiidasho badan, isla markaasna ahaa nin siyaasi oo hadal macaan, aadna u xiiseeya arrimaha siyaasadda iyo ka hadalkeeda, dadkuna ay si fudud u aaminaan, aad iyo aad u ahaa nin aftahana.